ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتنا شرفت لك وصول لهذا كنال كنا برا في إنجليز وكنال أبطال قلنا إنا إنكم سوق بينه عشرة صابسان برشة أفكا إنجليشكا إن عشرة دين سيدا هر أصوشكني بوحي كصابسان دونا أما يقصين دونان إني كودا فائدستان ير إيوين بقفل بوصل هاي وكفائدستان دونتا أما أبا هانتا إنا برتيت أفكا إنجليشكا أنا يقادينا ودد أوفض أقول سهلا إن شاء الله. إن هدي أد عشرة كان كعصب تاعي فضلاً عشرة دين هو رديب وقول لابو سأولا سوق بسيط وسوق قارتيد هالكان سيدو كلها إلاوين سبسكرايب يو سيدو كلها إلاوين إنا لو ذاكتيد أصحاب تاد إهل كاي قفول بسله وكفائدة سندونا مع السنيد عشرة كان ما تح إنه سوق بين دونا نيجو زكريا وحون كوساب سنان دونا possessive adjectives. possessive adjectives وحان استعمالها مركان تلمامينو شيء لها شيء قاس أو شيء أديك الله ذا هاي أما الشيء أنيق الله هاي يو شيء أما أصدق أولي أما شيء أن وضلينا أنا ورن إن سأفهم عشر كان أنكم بلاونه إن سيدا حسوستان أنت ما كسر هذا الني أو نرجع كسر هذا الني لكن ولي وإنسي حسوسين دونا إن شاء الله إن أنكم بلاونه I أو أنيقا you أديك أما دينك he أصدق she يدا it waxaa isticmaalaa markaan tilmaamayno xayawaan ama noole soo noolaha oo aqli aan lahayn sida xayawaanka ama dhirta iyo wixii la mid ah ama qalin sabuurad guri waxa markaan tilmaamayno waxaan qaadanaynaa it we anaga they oo iyaga ah marka intaan ka soo horjeedkeeda waxaan ku haysanaa lahaanshahooda shay markay leeyihiin ama shay adiga aan leedahay ama adinka ama anaga aan leeyahay markaan tilmaamayno I oo kale waxaan qaadanaynaa my wixiga you oo adiga ah ama adinka your wixiina he oo asaga ah he wuxuu qaadanayaa his waxaa macnaheedu tahay wixiisa she waa iyada marka waxeeda aan tilmaamayno waxaan qaadanaynaa her it يعني وحيوان أما حيوان نولها عقلي لهنا ما قدرت مركز تماما أما وشيء لي هنا محوها إنتز وحقادين أنا it's we أنجا وحنا مركز لهنا our وحنا they يجا وحودا their وحودا okay ayado faahfaahsan dhanka bidixan ku haysanaa marka sa u fahanno oo muxuu ahaa oo aan u isticmaalno mar walba markaan tilmaamayno I am reading my book anigu waxaan akhrisanayaa buugayga I am reading my book anigu waxaan akhrisanayaa buugayga I oo aniga ah amtan oo ahaa ficilkii ahaanshaha I am anigu reading waxaan akhrisanayaa my book wixiga my waa wixiga oo ah buugas oo in aniga aan leeyahay I am reading my book anigu waxaan akhrisanayaa buugayga you adiga are oo ahaa verb to be ama ficilkii ahaanshaha ahaa eating waxaa cunaysaa your breakfast eating waa cunid you are eating your breakfast adigu waxaa cunaysaa quraacdaada he oo asaga ahaa is oo ah verb to be driving his car asagu wuxuu kaxeynayaa baabuurkiisa he is driving his car asaga wuxuu kaxeynayaa baabuurkiisa she oo iyada ah is oo ahaa ficilkii ahaanshaha ahaa sida verb to be going waxay u socotaa to her class she is going to her class ayadu waxay u socotaa fasalkeeda she is going to her class ayadu waxay u socotaa fasalkeeda the dog
is eating. It is food. The dog, eyga, is eating. Wuxuu cunayaa. Is kan weli waa verb to be. Eating wuxuu cunayaa. It is food. The dog is eating. It is food. Eygu wuxuu cunayaa cuntadiisa. We waa anaga. Are waxaan nahay. Are waa verb to be. Doing waxaan sameynaynaa our homework. We are doing our homework. Anagu waxaan sameynaynaa ama ka shaqeynaynaa shaqo guriyeedkeena ama homework schoolka lasaga soo diraa waxaa la dhahaa shaqo guriyeed af Soomaali ahaan ama shaqo guri. We are doing our homework. Anagu waxaan sameynaynaa ama ka shaqeynaynaa homeworkgeena. The children are helping their mother. The children are helping their mother. Caruurtu waxay caawinayaan hooyadooda. The children, caruurta, are helping. Caruurtu waa verb to be oo aha. Waa verb to be oo isticmaaleyno jamac. Children waa jamac. Markii hal cunug uu ka hadlaysid intaan child. Child waa cunug. Laakiin markii hal ay ka badan yihiin waxaan dhahayna children. R-E-N soo raacayso si u noqdaan caruur. Okay? The children are helping. Helping waa caawinaad. Their mother. Caruurta waxay caawinayaan hooyadooda. Hal maraan dib ugu laabanayna si fiican u wada fahanna haddana. I aniga, my waxayga. You adiga. Your waxaaga. He asaga. His waxiisa. She iyada. Her waxeeda. It waa xayawaan ama noole markaan tilmaaman waxay leeyihiin it's. We anaga. Our waxeena. They iyaga. Their waxooda. Okay? I am reading my book. I am reading my book. Anigu waxaan aqrisanayaa buugayga. You are eating your breakfast. Adigu waxaa cunaysaa quraacdaada. He is driving his car. He is driving his car. Asaga wuxuu kaxanayaa baabuurkiisa. Driving waa kaxayn. Driving waa kaxayn. She is going to her class. She is going to her class. Ayadu waxay u socotaa fasalkeeda. Class waa fasal. The dog is eating its food. The dog is eating its food. Eygu wuxuu cunayaa cuntadiisa. We are doing our homework. We are doing our homework. Waxaan ka shaqeynaynaa shaqo guriyeedkeena. Homework waa casharada iskuulka lasaga soo diro lagaga baahan yahay inaad kaga shaqeysid inta guriga joogtid. Saas waxaad iskuulka la tagtid. The children are helping their mother. The children are helping their mother. Caruurta waxay caawinayaan hooyadooda. Caruurtu waxay caawinayaan hooyadooda. Helping waa caawinaad. The children are helping their mother. Caruurtu waxay caawinayaan hooyadooda. Cashirkeena intaas inoogu leeyahay oo maanta aan kaga hadlaynay possessive adjectives. Waana cashirkii 7 qaybtiisa 1. cashirkeena xiga wuxuu noqon doonaa cashirkeena 7 qaybtiisa 2 aan kaga sii hadli doono intaan in kasii faahfaahsan insha Allah. Intaan cashirkaas ku kulmi doono waxa idinkaga tagay khayr iyo baraari barwaaqo iyo bashbash iyo barakooyin xagga Rabbi ka timid. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.